tirada dadka loo geysanayo afduubka ee ku nool ismaamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa aad u korortay iyadoo arrintan walaac xoogan ay ka muujiyeen mas'uuliyiinta ismaamulkaasi oo tilmaamay in qoysaska dadka la afduubtay markasta culays gaar ah ay kala kulmayaan. xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Ijaara ee ismaamulka Gaarisa ayaa ka mid ah dadka sida weyn arrintan walaaca uga muujinaya. xildhibaan Cabdi Cali ayaa waxa uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad ka soo jeeda deegaankiisa oo la la'yahay jaani cirib halka ay dhigeen kadib markii koox aan heybtooda la aqoonsan ay kaxaysteen. waxaana uu cadeeyay in dadkan la kaxaystay intooda badan ay u badan yihiin dad magac ku dhex leh bulshada, gaar ahaan arrimo ganacsi gacanta ku hayay. xilli uu baarlamaanka ka hor hadlayay ayuu u gudbiyay fariin ku saabsan in xaaladda ammaan ee Ijaara ka jirta ay faraha ka sii baxayso loona baahan yahay in dowladda Kenya ay xal rasmi ah u keento. waxa uu sheegay in 15kii bishii hore la waayay Mr. Cabdi Maxamed Cabdi oo ay afduubteen koox hubaysan oo aan la aqoonsan halka ay ka yimaadeen, sidoo kalena lama oga halka ay geeyeen. waxaase la sheegay in ninkan la afduubtay uu xoolo badan ku haystay kaynta Pony isla markaana uu yahay nin xoolo dhaqata. toddobaad kadib xilligaasi waxaa gurigiisa laga kaxaystay Mr. Axmed Cabdi Axmed. mudanaha ayaa sheegay in ninkan uu ku sugnaa hoygiisa oo ku yaala tuulada Bulagora ee deegaanka hoose ee Ijaara. sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay deegaankani Ijaara ee ismaamulka Gaarisa ayaa shaaca ka qaaday in Cabdi Cali Sheekhow uu baarlamaanka u xaqiijinayo in 23kii bishii hore la kaxaystay. Mr. Cabdi Jabriil Dhaqane ayaa isaguna laga soo afduubtay tuulada Baragon ee duleedka degmada Boodai xilli uu halkaasi lo ku daajinayay. wuxuu intaasi ku sii daray in dadkan la la'yahay ay yihiin dad eheladooda culays badan ay ku hayaan mas'uuliyiinta deegaanka oo isaga uu ugu horeeyo, iyaguna ay dhowr jeer oo hore arrintan kala hadleen laamaha ammaanka Kenya si loo soo badbaadiyo dadkaasi, laakiin laamaha ammaanka Kenya laga heli waayay macluumaad dhameystiran oo ku saabsan dadkan iyo xaalkooda. waxa uu ugu baaqay dadka deegaanka in ay taxadar gaar ah muujiyaan, kooxahana baaritaan gaar ah lagu sameyn doono oo la ogaan doono halka ay geeyaan dadka ay kaxaystaan. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Brimer World waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha kudhi